munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay laguna sii sagootinayay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ka dhacday magaalada London. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne aad u badan ayaa waxa hadallo ka soo jeediyay madaxda xisbiga kulmiye ee UK wasiiro iyo mas'uuliyiin kale. ma jecel caawinaan wax badan halkan aan ka jeediyo waayo waqtiga ay neeryanaya waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan si official ay noogu furo shirkeenan caawa oo ah shirkii ugu ballaadhnaa ee xisbiga kulmiye uu ku qabsado UK. waxaan jecelahay inaan aad iyo aad ugu mahadnaqo laamaha xisbiga kulmiye iyo dadkii ka soo shaqeeyay ee xafladan quruxda badan inoo soo agaasimay. aad iyo aad ayaan dhammaantiin idinku mahadnaqayaa ka soo qayb gasheen anigoo ahaa qabanqaabiyey xafladan aan waqti badan aan ku isbangaraynay aad naga ajiibteen ibaatinkiina aad iyo aad ayaan idinku mahadnaqayaa. waxaa kaloo sharafiya inaan soo dhaweeyo mujaahidka ahna madaxweynaha mustaqbalka ee Soomaaliland mujaahid Muuse Biixi Cabdi. sharaf bay tahay inaan sameeyo. xisbiga kulmiye UK meeluu joogaba iyo laanu yahayba waxa ay ballan qaadeen oo ay muujiyeen labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxay muujiyeen taageerada xisbiga oo ayaan waxaanay ballan qaadeen in wax alla wixii looga baahnaa in ay qabanayaan waxay doontaan noqotee waxa kale ay ballan qaadayaan doorashadu maalintay taagan tahay iyo bisha ka horeysaba inay iskugu tagaan gudaha Soomaaliland oo kaalinta ugu weyn ka ciyaaraan way ballan qaadeen waana diyaar waana wada tegayaan soo sidaa maaha soomaynaan ballan qaadin xaggan iyo xaggaaba soomaynaan ballan qaadin aad iyo aad baad u mahadsantiin. waxaynu joognaa marxaladii kala guurka ee loo tartamayay hoggaan axsaabtu tartamaysay hoggaanka inay cidi ku guulaysato. kulmiye waa ku guulaysanaya. kulmiye ha noolaado guul iyo gobonnimo madaxweynaha Soomaaliland ha noolaado madaxweyne ku-xigeenku ha noolaado gudoomiyaha xisbiga mustaqbalka madaxweynaha mustaqbalka dhow ha noolaado. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Muuse Biixi Cabdi inaan aad u soo dhaweyno oo aan si sharaf leh u soo dhaweyno. waxaan kaloo salaamaynaa iyadana inaanu salaan qaali ah siino wasiirada qaaliga ah ee la socda oo Dr. Sacad uu ka mid yahay oo nin badan Brussels isku aragnay. waxaan leeyahay guusha waan gaari doonaa sidii tii hore baan u gaadhnay. kulmiye gacmuhu is haystay maantana insha Allah sidaas leeg tii iyo ku ka daran inaynu dadka u tusno oo aynu muujino. London ha ka bilaabmato Yurub ha ka bilaabmato North America ha noqoto insha Allah bidlamay karan waxaan rajaynayaa reer kulmiye inay gacmaha is qabsadaan. Muuse annagu waxaanu dooranaynaa Muuse Biixi Cabdi soo sidaa maaha. haddaba idin sheegi maaye inta aan ogeyn ma u sheegaa waxaynu ku dooranayno laakiin waxa ugu muhiimsan waxaynu ku dooranaynaa wixii uu macallinkiisi qabtay Axmed Siiraayo waa ninka halkii ka sii qaadaya. innaga macallinkeena siyaasaddu waa Axmed Siiraayo madaxweynaheennuna waa Axmed Siiraayo hogaamiyaheennuna waa Axmed Siiraayo. Axmed Siiraayo kaynoo bedelayaana waa Muuse Biixi. waxaan eegaynaa 6 sano dalka aynu soo xukumaynay wixii aanu qabsanay halkay joogaan oo kor uga qaadno iyo hawshii aanu qabanay wixii challenge ama dhibaatooyin in hooyada inaga soo baxay oo aynu daweyno. dadku marka la yidhaahdo xisbiyada maxaa la qabanayaa berito dhammaanteen waxay u aqoontaanaa dhaqaale shaqo abuur caafimaad wanaagsan waxbarasho tayo leh isgaarsiin iyo infrastructure kaabayaal dhaqaale. intaasaa markaa maskaxda ka soo dhacda waa inta loo baahan yahay. waxaan isweydiinaynaa haddii aanu kulmiye nahay oo waayo arag nahay oo xisbiga ugu daaweyn nahay oo xisbiga imika wax badan soo qabtay nahay sideeba ugu dhaqsan badan ee waxyaalaha wanaagsan ee doonayna ay ugu gaadho. waxaanu talo markii aanu guurnay ka wada weyn haddaanu kulmiye nahay dalkeenna dhibaatooyinka yaalla waa maxay. markaanu soo koobnay 3 dhibaato ayaa xal u baxa. tan koowaad waa in la helo nidaam dawladeed oo hufan oo cadaalad ah. tan labaad waa in la helo nidaam maamul oo hufan oo cadaalad ah. tan saddexaad waa in la helo nidaam siyaasadeed oo hufan oo cadaalad ah. tan afraad waa in la helo nidaam xisbiyeed oo hufan oo cadaalad ah. tan shanaad waa in la helo nidaam dowladeed oo hufan oo cadaalad ah.
waa saboolnimada labada kale iyada ka tafiirmaa waa qabyaaladda iyo qaadka haddaynu saddexdaa maxamed khadar gaas, Home Cable TV, London.